anigu ma soo bixi karo oo dee intan bannaan reerku waa reer iska nimco badan ninkii gaadhiga wata ayaa waxaan ku walaal ilmaha baabuurkaaga istaajiso nacnac baan ku siinayaa hoo adeerku inankaygu markaa waxyaabaha macmacaanka ayuu aad u jeclaa cabdiqaadir oo wax uu aad u jeclaa ayaan u soo iibiyey oo ninka ugu dhiibay ninkii waa ku yidhi adeer hoo bahalkan inankayr waxa laga dhaadhiciyay haddii aad baabuur meelaha taagan oo kuu yeedhaya aragto ilmihi yara cabdiqaadir oo naga cararay cararkii kuma istaagino daf mu odhano muu gelin gurigii albaabku soo istaagayo dad qalbaata waad qaadanaysaa adaasuu hayaa wuxuun baan sida cabdiqaadir oo ninkan armaabuu ka baqanay daaqadan saa u dejiyey inankii yara wuu soo cararay alla waa hooyaday hafan ka siiyo xagga dambaan ku ritayo gaadhigii baan siiga kusoo kicinoyna mar shabaan koodhi waan la soo baxay maasha allah cabdiqaadirow ilmihii yaraa waxaan la imiday waan la soo tahriibay sacuudi baan la imiday sacuudi baan inankayga yaraa ku haystay isagoo weyn muddo 4 sannadood adu 5 sannadood wax bilo yaryar dhiman ayaaban sidii aan garoob ku ahaa oonan maxaladnin aanan isku dayin ilmahaygii aan sidii ku haystay alxamdulilah ilaahay waa igu asturay nin weyn buu noqday maasha allah waxaan u bixiyay inankayga ciiltire magacii 2 magac baa la yiraahdaa muhanad iyo ciiltire cabdiqaadirow maasha allah inankaygu sacuudi ayuu sidii igula noolaa cabdiqaadirow markuu ila noolaa ballankii iyo axdigii aan ninkayga ka qaadayna aan oofiyey aanan nin raadinin ayaa waxa dhacday wiil baan isbaranay cabdiqaadirow adkaatay waxa dhacday asmaar mar mud baan ku geliya codkaa igu soo laalaabanaya bal ii hagaaji maxaggaaga codkaa igu soo laalaabanaya mudkan ka soo baxo cabdiqaadir هذا ما مقشة لكن عندك يوصل لابنا أدو قلب مود بنقلي هيبة ده واحد على عبد إن محل هذا سيدي ننسكو برانا يمكن ننكي جهرة هرتان ده أن أوران كر ننكي جونا جول هاي ده نمدو الهاي ده سيدو هابو نقنا يا مو هين لكن نقنا يا مو هين لكن نسيبوناك مركان سايسكو برنا عبد deeta waxaa dhacday cabdiqaadirow in maxaa la yidhaahdaa wiilkii markaan baranay isla markiiba uu igu dhahdo waan ku guursanayaa waan ka ogolaaday waxaan ku dhawa si fiican cabdiqaadirow wiilkii waan isguursanay waxaan u dhalay isla markii markaasaa isku guursanay ilmo yar baan u dhalay ilmihii aan dhalay cabdiqaadirow wiil labaad buu noqday inankayga hore inanku igu galo raalibigagaha laakiinse waxa dhacday markaan saa ugu dhalay ninkii nin aan markiiba isguursanay buu ahaa nin aan isla qaadanay muu ahayn wuxuu igu yidhi maadaamaad hadda aad ilmaadii dhashay waxa aan rabaa inaad ilmaha aad koriso aniguna waan tahriibayaa gabadhay sidaa ula soco waxaan ku halkadu tahriibaysaa deet wuxuu igu yidhi liibiyaan doonaya inaan maro ilmahaagana hayso dee kan saad u korinayso badkanna u korinaysaa walaalkay baana kugu soo biilnay waxaan ku yidhi ma korinaya ilmahaaga ila dardaarmood ee labadaba dhalay laakiinse kan baan haynaya cabdiqaadir ku soco hadda caadi waa codkii ku soco walaa asmaay ma raba cabdiqaadirow inaan maxaa la yidhaahdaa ninkan aan de ilmaha un aan koriyo durdabeyntan isguursanay markaa anigu dhahdo waan tegayaa waan ugu yaraa caga juglay waxaan ku ilmahaaga qaado cidaad u geysanayso u geyso hayso anu mar jecli inaan ubadka dayaco gabadh hooyo aad u jecel baan caga juglaynaysaa markaan ku wiigu dhawa fiican cabdiqaadiroo processku watay buu iskaga yara dhigay wuu ii soo yara dabcay cabdiqaadiroo nin aniga jecel oo i raba maaha waxa la wuxuu ii guursadayna ma garanayo sanahaynoon xiriir bad samayn ayaan isnidhoon isguursanay codkaygu hadda waa caadi sax
deeto waxaan ku uri cabdiqaadiro waxaan rabaa waan ku uri in aan wadankii inankayga yaraan u diro oon hooyaday u diro waxaana rabaa inaad i caawiso anigu hadda kharash ilmaha kaxaynayana lacag buu iga qaadanayaa waxaan rabaa lacagta inaad bariga bixiso wixii ku yiri lacagtaanu ilmaha maanaa dhalay yaa lacagtaanu maanaa ilmahan dhalay kii weynaa buu sheegaya markaa haa kii weynaa buu sheegaya waxaan ku uri adumaa dhalin laakiinse anigaa dhalayuu beerkayga yahay aabihii dee hadduu geeriyooday maanta ana aabihii hooyaba haddaanad iga bixinahayn uri cabdiqaadir waan isku dhacnay ninkayga guriga cabdiqaadir markuu joogo aniga ixtiraam iyo jacayl iyo farxad midna ima tuso waxa uu samaynayaa inuu isagoo sariirta bartaa ku jiifoon anigunaan ama ag jiifa amaan ag fadhiyo inuu naaga kale la sheekaysto yaa inuu naaga kale la sheekaysto adu maxaad qabanaysaa marka cabdiqaadirow taleefankiisa markuu wadoodo anigu ma dareemayo oo isma lihi ninkan de naag buu la hadlay ama naag buu ku mashquulsan yahay muddo cabdiqaadir markuu sidii ahaa isleeyahay ninkan mar walba hadduu sariirtaa jiifa waxaanu ku mashquulsanya waa maxay oo cabdiqaadir sidii uu kolba maxaa la dhahdaa ileeyahay haddaan u yeero dhawaadaan maan la hadlo orad wadanahaaga qabso maxaad halkan lasoo fadhiisanaysa horta maxaad qolka maxaad ka dhex qabanaysaa nabad hablo soo caadi kugula ag sheekaysto maadaama ilaahay afar u baneeyey maanay caadi ahayn midaan qolaateen ila romantic baa tiin moogtahay hablaha Soomaaliyeed inta badan waa romantic ma ogolaan leedeen cabdiqaadir mar walba uu yaflagaadeynaya wuxuu leeyahay bax nabad indha adagta orado qolkaa kala tagde oo caruurta hay ninkan anuu isma yidhaahda cabdiqaadir ninkan muxuusan kuu leeyey iba jecla inuu dee ma aqaan dana uu wato danihiina waan ogaan kar lahay si walba waan isugu day laakiin waan ogaan kar lahay cabdiqaadir muddo markan bahdilkii ku noolaa dhowr bilooda uu sidii igula noolaa ayaa waxa dhacday maalin anigoo wada maraya in laygu dhaahdo asmaay naagta halkaa maraysa ma aragtaa ninkaaga hebel ayaa maalin iyo habeenba la hadla oo la sheekaysta ninkaagu maanu guriga kula joogin adkaatay cabdiqaadir waxaan ninkayga guriga wiila joogaa laakiinse isagoo taleefon ku hadlaya ma arkin cabdiqaadir intuu qolka tv-ga soo fadhiisto caruurta uu tv u shidu tv-ga u dallaco ay markuu in yar nala fadhiyo soo baxaa show gabadhan buu la hadlayaayo haadaa la hayaayo halkan guuxaya gunaanadka ka dhacaya ma maleynisid aniguna warumahayo cabdiqaadirow sidii markay ahayd ayaabaan ku uri anigu warkaa ma hayo gabadhay waanan dabagelayaa ninkaa bal waan eegayaa inay run tahay inay been tahay hablo su-aal baa weydiiyey ilaahay baa afar noo baneeyey mararka qaar ma iska samraysaan oo caadiya ya mararka qaar iska samrano ilaahay baa afar noo baneeyey lena guryaha ha u baabiinina ku soco cabdiqaadir oo deeto maalmaha kamid a waxaa dhacday isagoo musqusha ku jira taleefonka baaskan waan awal ku aqoon jiray waa laga bedelay laakiinse waan ku eegay nasiib wanaag uu ii furmay cabdiqaadir oo moobilka waxaan ugu tegay sawro la isku diray fariimo qurqurux badan oo la isku diray aduu de laba qof oo xiriir romantigo aad u qurux badan wada jilaya saa markaan eegay cabdiqaadir oo qalbiga ay xanuuna hadlaya adigaba kuma siiyo farxadan iyo jacayl gabadhan la wadaagaya maxaa qaldan aniga cabdiqaadirow haddaan isdhihi lahaa adaa bahdilan haddaan ahayn waan is ogahayo waxaan ahay gabadh qurux badan oo ninkeedii horeba uu ku laafiyoon jiro wadooyinka la mari jiro la xaragoon jiray laakiin kan waa laga cabdiqaadir deeta waxaa dhacday taleefonkii halkii baan iska dhigay masqushiba kasoo baxay waxaan ku uri aniga odaygaygi baatay inaad khiyaanto inaad
dee haddii aad naa kale u baahan tahay inaad xaqiiqada ii sheegto weeyaan anigu xaas baan ku ahay dee xaq baan kugu leeyay gurigan ku wada noolnahay xataa ku ag jiifinta dhinaca kaaga sii jeedsada aad taleefan kale aad iskala isticmaasho naa kale aad la hadasho anigoo guriga kuu jooga inaad inta tv